بسم الله daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena dhextaalka ahaa waxaan isweydiinaynaa sideebad ilmahaaga ugu doori kartaa magac wanaagsan sideed ugu doori kartaa ilmahaaga magac wanaagsan طبعا waxaan dareemanaa ama inuu ognahay inay kamid tahay xuquuqda uu ilmuhu ku leeyahay waalidkii inay kamid tahay magac wanaagsan u dooraan sideebad hadaba magac wanaagsan ugu dooraysa imaamu al-Mawardi ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa saddex qodob ama saddex arimood oo magac wanaagsan lagu dooro ubadka kow inuu magacan yahay mid laga soo qaatay min asmaa'i ahli diin dadka ahli diinka sida anbiyada iyo dadka saalixiinta dadka cibaadada ee wanaaga iyo khayrka lagu yaqaan iyadoo taa loo niyoonayo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu dhawaado dadka magacantooda marka loogu bixiyo ama lagu halqabsado aad bay uga sheekeen culimada arintan noocaas taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ee ilmaha magac wanaagsan ugu dooraysa ومنها أن يكون الاسم إنه مقع كوبصدو تلمامان كو إنه يهي قليل الحروف إن مد حروف تيسو كوبانتاي خفيفا على الألسن عرب كان أفضت سهلا في اللفظ حق لوقنا أفضت سريع التمكن من السمع قفدتك هدي أي مقلانا مركا وميعاني سيدينينو أي حينيان أما دقوقو أي لقب سنيان وين مقع قضب كالبادي وين مقع التلمامها أوليه قضب كصدحات ومنها أن يكون حسنا في المعنى إنه نقضى مد معناهان حسنة أو نكسن كنا مناسب أو هبون أما أقلمة ملائما لحال المسمى عدة لقوم قاعدرينا ده أقلمة أما مناسب كوه جاريا في أسماء أهل طبقته وملته وأهل مرتبته مقع سواء يصيدوا كلا يهي مد كدريري أما لغا استعمال ضدك ديغان كيسا يكونوا لهي isku diinta ay yihiin dadka muslimiinta ay la baxaan sidoo kale dadka martabadiisa soo kala ah ama waalidkiisa soo kale ama jeeraankiisa soo kale ama martabada uu nolosha kaga jiro dadka la midka magacanta loo bixina way loo bixi adigu magac maxad ku doori lahayd ama magaca dad bixinayso maxad ku dooran lahayd maaha masaladii tawqiifiya maaha masalo cibaado ah qaabka loo marayo laakiin maxay kula tahay bal faalada nagula wadaag aad iyo aad baad mahadsantahay السلام عليكم